السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقاعيقو وفرحان جنان كاذيقا داوانيسانا وفرحان وفشيال فضلا هدلا جنان كعصبتاي فضلا سولو سبسكرايب نساسينا شيرقري ولو داك اسحابتا سيكو لداودان موقال والبوان سوق لينو آدياد وما سنتي سيدا قروح دبادان نقو حرانتهين ما انت ادبان وحاينو ودا انبا انشيقيا انبا انداها كاقادي دونا بقر كعوثكا وكما كاسي ومحمد سعيد بيكي soo wada jirno nolosha weel soo ahay maxaa laba wacad galo qulubta jacayl ku weeyay kada maxamed biike waa mid ka mid ah riyooyinka ugu caansan jacaylka dunida in badan taariikh ay ku leedahay darajo ahaan inay rumaysan yihiin dad badan oo mucaashaqiin ah oo xaqiiqan u jirin waaqic ahaan tanina waa mid ka hor imanaysa xaqiiqda matalaysa biike oo lagu mudnaanayso kii abid ugu codka macaanaa uu soo noolaa waqtiyadii uu dhashay 1984 maxamed biike waxa uu ku dhashay magaalada caasimadda ee Muqdisho. maxamed biike waxa uu ku soo barbaaray magaalada Erigabo isagu waa ku ugu caansan ee haddii gole labiya toban lix kun iyo labiya laba lixdan dumari jooga libdada shiiq saadaay heesihiisu jajabnaan ka muuqato ilaa iyo hadda fanaanka geyga Soomaaliyeed guud ahaan ba aad loola jecel yahay. waxa uu ku dhacay qiso jacayl oo aad u dheer midka kuwa ugu caansan ee jacaylkiisu waxa uu ka soconaa jacaylkiisa jacayl kala yari ku beermay taariikh xumaaday garaacad sooyaalka haygu talo talabo degdeg aanu qaaday sidaan ugu turunturooday tusaale hayaato dhowr sana ma aha mid waalan laakiin waxaa lagu magac daray inkii ku waalnaa heesaha jacaylka. waxa uu ka baxay xidigaha geeska waxa uu ku noqday miiskaga hayaamay oo laga hoyda qiirada jacaylka isla markaana uu ku heesa jacaylkiisii markaa waxaa lagu arki jiray Berbera ama Burco kuwaasoo ah meelaha jacaylka. lulay dunida weliga ladnaaniyo ku joog lulay farax ku joogo ladnaaniyo ku joog farax biike waxa uu shaaciyay war lama filaan oo kaasoo miisaankiisu cuslaa waxa uu kashifay suurtagalnimada uu ku soo laabashada boqorka codka Muqdisho mustaqbalka dhowr waxa uu ahayd xilligii uu ugu dambeysay maxamed biike hees u qaado ee Muqdisho. adduunyadu waa gabagabe mahma guunabay garwaalo wada islaamay Somalay gesima oo kala kulmay soo dhaweyn waana waxa kaga timi jamaahirinta Muqdisho waana waxa ka riixaya soo laabashada dhabta ee boqortooyada. sidaan hore u sheegnay Cabdi Tiib waxa uu baahiyay xog sheegaysa inuu biike u xiisay Muqdisho sidoo kalena aan lahaa dib u shidid iftiinkii ka dambeeyay halkaas siike iyo Sharma Boy fanaanin u yihiin jamaahirinta ishqiga wahaya boqorka codka ayaa soo dhaweeyay soo laabashada Muqdisho 8% gobweeyaan reer Muqdisho Allah galada ee baabaxsho garaadku waxbuu hagaayay gobweeyaan reer Muqdisho laabashadu ay ahayn mid sahlan si wadno tibinta dhiirigelintu waa dhankaaga fadlan shibda si sheergare kaalay oo community-ga maalin qura halleene lulay dunida weliga ladnaaniyo ku joog lulay farax ku joogo ladnaaniyo ku joog farax